Waxaa maanta dagaal culus oo ka dhacay deegaanada Ceelsalin iyo Buushka ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ciidamo isku dhaf ah oo nabad sugidda qaranka kuwa deegaanka lambar konton iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fuliyeen howlgallo qorsheysan. Howlgalka ayaa yimid kadib markii la helay xogo sirdoon oo lagu ogaaday in kooxaha khawariijta ay isku urursanayeen deegaanadaas si ay u fuliyaan falal argagixiso oo ka dhan ah shacabka iyo ciidamada amniga. Ciidamadu waxay si degdeg ah uga falceliyeen xogta iyaga oo qaaday weerar toos ah oo lagu bartilmaameedsaday goobihii ay khawariijtu ku dhuumaaleysanayeen. Dagaal adag ayaa halkaasi ka dhacay waxaana ciidamadu ay si buuxda ula wareegeen goobihii ay khawariijtu ka joogeen Ceelsalin iyo Buushka. Howlgalka waxaa hogaaminayay kusimaha taliyaha guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka. waa mahadsantahay gudoomiye iyo dhammaan maamulka oo dheegle iyo waxaan u mahadcelinayaa taliyaha nabad sugidda degmada Awdheegle. waxaan u taaganahay har iyo habeen dabagalka iyo dhabargoonta kooxdan khawaarijta al-shabaab. meesha aan taaganahay waa Saliina. howlgalkan wuxuu isku xiran yahay number 50 ilaa kilometer 67 uu isku xiran yahay. waxaa ka wada qayb qaatay militariga ururka guutada 14 Oktoobar ururkiisa 143aad nabad sugidda degmada Awdheegle iyo number 50 il maleeshiyaadka beesha Biimaal oo eegana dhinac ka ah. marka waxaan leeyahay annaga waxaan u taaganahay ka federaal ahaan waa u taaganahay, ka koonfur galbeed ahaan waa u taaganahay, ka deegaan ahaan waa u taaganahay, gobolkeena iyo deegaankeena waa u taaganahay. ama title aan wadano ama title yaanan wadanin waxaan u taaganahay mar walba in cadowgan khawaarijka ah oo ummadda dhabar gooyay dhibaateeyay inaan ka hortagno godadkooda aan u galno. waxaan baaq u dirayaa walaalaheena xabaale. waxaan leeyahay ha niyad jabnina, magaciisii waxa aad ku jirtaan waa jihaad, wax kaliya lagu fiirsanayna maaha. anagana dhinacaan ka nahay, weliba gaar ahaan beesha walaalihiina Biimaal eedana dhinac bay ka tahay. hadday hiiraan idinku dhibaateynayaan ama ku dhibaateynaysiin anagana waxaan ku dhibaateynaynaa ama dhib ay noogu hayaan gobolka Shabeellada Hoose anaga iyo dadka kale oo nala degan. waana u taaganahay hadduu Ilaahay idmo walaa naqaafu minhum lawmata laa'im. cabsiyarna uguma baqeen hadduu Ilaahay yiraahdo. wabillahi gudoomiyaha maamulka number 50 mudane Maxamed Maxmuud oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka waxaana uu tilmaamay in ciidamada guulo muhiim ah ay ka gaareen isla markaana ay burburiyeen fariisimo muhiim ah oo ay khawariijtu ku lahaayeen halkaasi. runtii Alle subxaanahu wa ta'aala mahad iskale war badan nooma furna. runtii howlgal ballaaran maanta la soo sameeyay maadaama jiinka wabiga howlgal uu ka socdo gobolka Shabeellada Hoose oo saaq ugu dambeysay dhanka Bariire howlgal ballaaran laga sameeyay. marka sidaas awgeed kooxahii nabadiidka waxay soo sameeyeen in dhabar jabin ay sameeyaan si howlgalkaas loo fashiliyo agagaarka Ceelsalin ee Buushka. saake runtii in ummadda masaakiinta ay ku dhibaan intaasay damacsanayeen. runtii anagana waxaa sameynay ka maamul ahaan iyo ka ciidan ahaanba si guudba waa loo soo baxay, dagaalaa la soo aaday. runtii hadda waxaa lagu sugay bartamaha Ceelsalin. waxaa garabkeyga taagan taliyaha guutada Oktoobar ee Taliyamuya asaga howlgalka hogaaminayo. runtii taliyaha Nisa ee degmada Awdheegle asagana qayb u ka yahay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Awdheegle asagana waa socdaa. barta hadda aad joogno waa halka al-shabaab ay ku dhuumaaleysanaysa dabadan ee la gelaysa Ceelsalin. runtii dadka aad ay u yaqaaniin dhowr jiha laga soo galay maanta. nimankii nabadiidka si dirq ah oo alla ogyahay ku badbaadeen, haddana ciidanka ku raad joogo. runtii annaga mas'uul iyo ciidanba mar haddii cadow la sheego nin walba waxay u dhowow garab ka saartaa oo hub ah. mana loogu baranin in cadowga dhabarka la aadiyo, in la dhinto keliyaha cadowga runtii ugu adkaana iyo in la dhaawacmo. dad dhimashada diyaar u ahna gobolkan way joogaan. dowladda ha ogaato ama aysan ogaanin gobolkan dadkii u dhashay gaar ahaan deegaanadan waxay diyaar u yihiin waqti walba inay nafta horaan maalka bixiyaan si cadowgan nabadiidka la isaga dulqaado. Aways Muumin Xasan Aways okay warbaahinta codka ciidamada Shabeellaha Hoose.